السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري waxaan doonayaa inaan idinla wadaago afar xaqiiqo oo nolosha ku saabsan kuwaasi oo ay muhiim tahay inaad ogaato isla markaana aad samayso amaba aad ku dhaqanto. Haddaba maxay yihiin afartaasi waxyaabood? Marka hore magacaygu waa Cabdirasaaq Bulqaas, halka aad naga daawanaysaana waa page-ka Bulqaas Media. Fadlan haddii aad page-kan ku cusub tahay, like iyo follow na soo dheh. Haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto. wixii tale iyo tusaale ah dhinaca commentiga noogu reeb. iminkana aan u guda gallo afartaasi waxyaabood iyo waxa ay kala yihiin. kow, isbar in aad ka fogaato dadka xagal daacinaya himilooyinkaaga iyo hadafka aad nolosha aad ka leedahay. dadka aan caqliga lahayn unbaa sidaas sameeya, laakiin dadka caqliga u saaxiibka ah had iyo jeer waxa ay ku dareensiiyaan isla markaana ay kula garab galaan sidii aad u gaari lahayd himilooyinkaaga iyo waxa aad hiigsanayso. waynu ogsoonnahay adduunkan aynu ku noolnahay qof walba waxaa jirta himilooyin iyo hadafyo uu hiigsanayo oo uu doonayo inuu ka dhabeeyo. haddaba si ay himilooyinkaaga iyo hadafyada aad nolosha aad ka leedahay ay kugu hirgalaan, had iyo jeer isaga fogow dadka maangaabka ah ee had iyo jeer dadka niyad jabiya isla markaana aan laga dhaqaaqin. taa beddelkeeda waxaa asxaab ka dhigataa oo aad raacdaa isla markaana aad talooyin iyo weliba wax aad ku darsataa dadka caqliga u saaxiibka ah oo aad is leedahay waxbaad ka faa'iidaysaa. waayo qofaadan waxba ka faa'iidayn macne kuuma samaynayo. aad uga taxadar qofka aad saaxiib aad la noqonayso. raadsana dadka caqliga u saaxiibka ah ama qof wax kugu soo kordhin kara ama kugu biirin kara. labo, marka aad dadka kale aad ka farxiso waxa la xaqiijiyey amaba la ogaaday in farxaddaasi adiga ay dib ay kugu soo laabanayso oo adigana aad farxayso. haddaba si farxaddaasi ay kuugu hirgasho oo aad ummadda aad uga farxiso, mar walba marka aad fakarayso waxa aad u fakartaa dhinaca wanaagsan oo keliya ama positive waxa afka qalaad lagu yiraahdo. haddii aad u fakarto ama ka fakarto waxyaabo negative ah, farxadi kaa dheer oo markaa farxad ma jirto. si haddaba adiga iyo ummadda kugu hareeraysan ee markaa kula jaalka ah ama jaarka ah ama ehelka ah aad u wada farxdaan, waxa aad ku dadaashaa sidii aad si wanaagsan ama wax wanaagsan aad ku fakari lahayd. teeda kale in aad qof aad ka farxisaa diiniyan waa wax sadaqa ah oo waa wax diinteenna ay ammaantay. marka ku dadaal inaad dadka kale aad farxaddaada aad la wadaagto ama aad ka farxiso si adigana farxaddaas ay dib ay kugu soo laabato oo aad u noqoto markaa qof noloshiisa inta ka hadhay stress la-aan, buuq la-aan ku noolaada oo nolol markaa farxad ah oo wanaagsan oo degan daris la noqdo. saddex, markii aynu ka faa'iidaysanno fursadaha ina soo mara ayaa nolosheennana ay horumar ay samaynaysaa. laakiin khatarta ugu weyn amaba ugu adag ee aanu u baahannahay markaa inaynu u babac dhigno ama inaynu qaadanno ayaa ah in aynu daacad ka noqonno waxa aynu samaynayno ama fursaddaasi aanu ka faa'iidaysanayno. haddaba qofka marka uu daacad noqdo maxaa dhacaya? daacad marka aad wax ka noqoto waxaad u nugushahay in lagu khiyaano. waayo daacadnimadu waxa ay muujisaa qofka inuu waxaasi ku qanacsan yahay oo wax walba kaga yimaada markaa uu diyaar u yahay inuu qaato. marka waxaynu u nugulnahay in qalbigana laga dhaawaco qofka marka uu wax daacad uu ka yahay, uusan qofka kale ama dadka kale aad la shaqaynayso ama waxa aad wada samaynaysaan aysan daacad aysan ka ahayn. haddaba aynu ka faa'iidaysanno fursadaha ina soo mara si nolosheenna aynu u horumarino. laakiin haddii aad noqoto markaa sidii mahmaahdii ahayd ninkii seexdaa siciid dibidhal, waxba meesha ku soo kordhin maysid, noloshaadana horumar ma gaarayso, wax fursada oo aad ka faa'iidaysanaysana ma jiraan.
fursadaha ina soo mara aad bay u yar yihiin waana kuwa qariib ah waxaa wanaagsan in marka aanu aragno fursadaha noocaas oo kala ah in aan ka faa'iidaysano si nolosheenna aan isbeddel ugu samayno ama aan isbeddel aan u samayno dhinaca nolosha ah waayo qofku ma qurux badna in meeshii shalay uu taagnaa un maantana inuu taagnaado qofka waa inuu hore u socdaa horumarna uu sameeyaa 4 marka aad beddesho sida maskaxdaada ay u fakarto ogow adduunkaagana waa uu beddelmaa macnaha noloshaadu isbeddel ayay samaysaa taas waa wax la xaqiijiyey oo la ogaaday isla markaana dad badan ay tijaabiyeen haddii qaabka adiga aad u fakarayso aad wax ka beddesho habdhaqankaaga iyo dadka aad la kulmayso iyo sida aad adduunka aad u arkayso ama indhaha aad ku eegayso adduunka iyaga qudhoodu waa ay isbeddelayaan waa sababta had iyo jeer dadka loogu dhiirigeliyo in ay dhinaca wanaagsan un ay wax ka eegaan oo positive ahaan ay u shaqeeyaan waayo haddii aad adduunka aad ku eegto indha xun waxaan wanaagsanayn dhib baa jirta saasaa jirta waxaasaa jira adduunka wixii xumaa unbuu kula noqonayaa oo markaa noloshaada ma qurux badnaanayso laakiin haddii aad waxyaabaha jira qaybtood aad indhaha intaad ka qabsato aad isku daydo in waxa aad arkayso xitaa haddii ay wax xun yihiin in dhinaca wanaagsan aad wax ka eegto taas waxa ay kaa saacidaysaa in noloshaadana ay wanaagsanaato si qurux badanna aad u fakartid xitaa hadalka afkaaga ka soo baxaya waa uu isbeddelayaa markaa oo ma noqonaysid qof intaa wax uun tabanaya wax uun eedaynaya intaa cabanaya waad aragteen dad waxaa jira intaa cabanaya intaa dad eedaynaya intaa dad ku dheggan oo leh aniga saas liima yeelin halkaas way xun tahay wixii haddaad xumayso fikirkaaga waxaa ku jira markaa fikirkaaga sida uu yahay unbay noloshaada noqonaysaa akhyaaray waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen 4taasi waxyaabood ee nolosha ku saabsan kuwaasi oo ay muhiim tahay inaad wax ka ogaataan isla markaana aad ku dhaqantaan amaba aad samaysaan waxaana rajaynayaa in aad ku dhaqmi doontaan waa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee mar walba aad barnaamijyadayda aad ola socotaan bulqaas media ayaadna nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay pagekan ha naga ilaawin in like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha naga ilaawin sidoo kale in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto bakayl ha noqon si ayagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan faa'iidada aad heshayna ay u helaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinacyada commentiska iyo messageska aad baad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu